aynu ku bilownay Nigeria oo laga helay caabuqa coronavirus. Waxaa kiiskii ugu horreeyay ee caabuqa coronavirus lagu arkay dalka Nigeria. Waxaa laga cabsi qabaa in saacadaha soo aadan uu caabuqani ku sii baaho dalkaasi Nigeria, isla markaasina uu soo rito dad hor leh. Nigeria oo lagu tiriyo in uu ku jiro dalalka Afrika kuwa ugu tirada badan ee tirada dadka ku nool, ayaa haddii ay sii baahaan kiisaska cudurkani ee laga helay, waxaa cabsi badani ay ku abuuri kartaa dalalka Afrikaanka xilli uu caabuqani ku sii fidayo dalal hor leh. Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO oo ka hadashay kiisaska laga helay Nigeria waxa ay sheegtay in laga yaabo in uu gaaro dhulalka saxaraha ah ee ka tirsan qaaradda Afrika. Dalka Shiinaha oo ah halka uu caabuqani ka soo askumay bilowgii, waxaa lagu soo waramayaa in uu maanta dilay ilaa 44 ruux, kuwaasi oo u geeriyooday caabuqani halista ah ee coronavirus xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay uu u muuqanayay in uu sii yaraanayo, balse hadda uu soo laba kacayo oo ay kordhayaan tirada dadka uu galaafanayo. Dhinaca kale, Ruushka oo maraakiib dagaal u diraya dalka Syria. Dowladda Ruushka ayaa waxa ay 2 markab oo kuwa dagaalka ah, gaar ahaan kuwa xambaara gantaalada casriga ah, ay u soo diraysaa xeebaha dalka Syria maanta oo Sabti ah, sida ay ku waramayso wakaaladda wararka Reuters. Dhinaca kale, waxaa dagaal xoog leh oo ka socda waqooyiga Syria, dagaalkaasi oo u dhexeeya xoogagga Syria iyo kuwa Turkiga. Maraakiibtani dagaal ee ay leedahay xukuumadda Moscow ee ku soo wajahan xeebaha Syria ayaanan la ogeyn ilaa iyo hadda ujeedka laga leeyahay. Sidoo kale, wararka laga helayo gobolka Idlib ee dalka Syria ayaa sheegaya in 30 askari oo Turkish ah lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo la sheegay in ay geysteen ciidamada cirka Syria. Dhinaca kale, dowladda Greek oo sheegtay inay ka hortagayso muhaajiriin kaga soo wajahan dhanka Turkiga. Dowladda Greek ayaa sheegtay inaysan u dulqaadanayn muhaajiriin tiro badan oo si sharci darro ah kaga soo galaya dhanka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in muhaajiriin tiro badan ay soo dhoobteen xadka ay la wadaagaan dalka Turkiga, waxaana ra'iisul wasaaraha Greek uu hadalkiisa sii raaciyay in arrintaasi aysan marnaba aqbali doonin, aadna ay u adkeyn doonaan xadka ay la wadaagaan dalka Turkiga. Warbaahinta Turkiga ayaa soo bandhigtay boqolaal muhaajiriin ah oo ku sii jeeda xadka Greek, iyadoona arrintani ay timid kadib markii Turkiga uu ku goodiyay in uu ooda ka qaadi doono malaayiin qaxooti ah ee ku sugan gudaha dalkiisa. In ka badan 20 ruux oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay Pakistan. Ugu yaraan 20 ruux ayaa dhintay halka dhowr ruux oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen tareen iyo gaari nooca rakaabka qaada ah gudaha dalka Pakistan. Shilkani ayaa si gaar ah uga dhacay magaalada Kandahar ee 500 kiiloomitir u jirta magaalada dekedda leh ee Karachi. Gudoomiyaha degmada Shoko oo uu shilkani ka dhacay ayaa xaqiijiyay in tirada dhimashada ay marayso 20 ruux, balse uu ka cabsi qabo in tirada dhimashada ay intaasi ka sii kororto. Shilkani oo ay ku dhaawacmeen 10 ruux ayaa la sheegay in qaarkood ay xaaladoodu halis ku jirto. Dhanka kale, Turkiga iyo Ruushka oo ka wada hadlaya xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan gobolka Idlib. Madaxweynayaasha dalalka Turkiga iyo Russia ayaa ka wada hadlaya xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee dalka Syria. Xiisadda gobolkaasi ayaa u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo Suuriya, iyadoo ay sare u kacday kadib markii in ka badan 30 askari oo ciidamada Turkiga ah lagu dilay kadib duqeyn ay fuliyeen dowladda Suuriya. Wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ka jawaabtay oo ay beegsadeen ilaa iyo 200 oo xarumood oo fariisin u ahaa kuwa Suuriya, waxaana weerarkaasi Turkiga uu ku sheegay in ay ciidamadiisa ay ku dileen in ka badan 300 oo askari oo Suuriyaan ah. Hogaamiyaasha wadamada Turkiga iyo Ruushka oo qadka taleefanka ku wada xiriiray ayaa la sheegay inay isku afgarteen sida wax looga qaban lahaa xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan gudaha dalka Syria. Ugu dambeystina, Africom oo war ka soo saartay khasaare ka dhashay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose.
war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn diyaaradeed ay shalay ka fuliyeen deegaanka Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose. warka Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyay saldhigyo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanada Kunyo Barrow iyo tuulooyinka hoos yimaada, iyaga oo sheegay in halkaasi ay ku qaarijiyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. howlgalkani ayaa lagu sheegay qoraalka Africom in ay iska kaashanayeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee Africom. sidoo kale howlgalkani ayaa waxaa la sheegay in lagu burburiyay gaadiid dagaal oo ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana aysan waxyeello ka soo gaarin dad rayid ah.